mashaqadii ka dhacday suuqa waaheen ee Hargeysa waxaa ka hadhay dhacdooyin fara badan oo waxa soo baxay waxyaalo fara badan oo run ahaantii aan Hargeysana u qalmin dadka wax loo ururiyana aan u qalbin horta mid aynu isla fahanno dadka Hargeysa wax ku waxyeeloobay ee mashaqada ku dhacday waxay ahaayeen dad ganacsato ah oo shaqaysta oo aan haba yaraatee marnaba aan iyagu u baranin inay gacmaha horsadaan ama saadadka weydiistaan markasta oo ay dhibaato dhacdana dee weligeed baa la iska canqaban jiray oo la istaageeri jiray oo taasi muslimnimada ayaaba ina faraysa haddaba waxaa jirta wajiyo ay yeelatay dhaqaale ururuntii loo sameeyay suuqa waaheen ee Hargeysa waxaa jira dhalinyaro badan oo TikTok raaca oo intooda badan joogta magaalada Muqdisho kuwaasi oo samaystay barnaamijyo la yiraahdo u hiil Hargeysa halkan waxaan kala hadlayaa horta waa shakhsi fiican oo bulal bulshaawi horta waa shakhsi fiican haddii uu isku dayay in wax sameeyo laakiin se tani maaha tii laga dhex raadinayay magaca iyo ma garanaysaa Hargeysa garab istaagay iyo maaha waxaa jira dad badan oo duruufaysan waxaa jira masaakiin badan oo dhiban oo Muqdisho kula jooga oo Muqdisho eeriyadeeda jooga waliba waxaa jira boqolaal kun oo qaxootiya oo Muqdisho duleedkeeda jooga oo maalin walba soo qaxa oo u baahan in la caawiyo oo garab la siiyo oo la garab istaago u baahan waxaad soo ururayso ee yar waxaad ka soo qaadaysaa waxa weeyaan waa dad muxsiniina oo iyaguba wax yar la baxayay marka dadkaasi waxay ku baxaysaa waxa aad siinaysaa waxay ku baxaysaa walaalkayow dadka Muqdisho kula jooga ee hareeraheega degan ayaa ay ku baxaysaa oo runaantii ay wax noqon lahayd war dadkan Hargeysa dhibaatada ku gaadhay war akoona u buuxa guryahoogii baa u dhisan caruuradoodii baa iskuul u dhigta caafimaadkoodii baa qabaan alxamdulillah laakiin se Muqdisho waxaa ku hareeraysan intaas oo qoys oo dhibaataysan aan cidina ka warqabin haddii aad istiri wax caawi oo ay dir Ilaahay ka tahay kuwaas baa u xaq leh waxaad Muqdisho ka qaadayso Muqdisho soo dhaafinin ee Muqdisho dawladkeega geed إلهي وحما تركدك إلهي وحما دشكدك قفك أنا وحبة بحسنين هذا أنا الربي إنه ولالكيس وحقوق جاي الوايه بل نقاله لوسو أوروريي هذا لذا نوع عاسية بل maxay saameynta ay yeelanaysaa maxay tahay dadkaas in ku baxaysa bal hada qaabkan aad wax u dhigaysid wax u ururinayso ee dadkii habaarayso sadaqaduna sideedaba wax weeyaan waxa weeye sadaqadu wax qasab maaha wax xasanaad weeye laakiin markaad habaaraysid leedahay qasab ku keena bal ma dadkii baad dhibaataysay meel xujeysay bal sidaad wax tiri runaantii in lagu caqli celiyo u baahan tahay in khaladaadkaaga la saxaad u baahan tahay adiga laftaada lagu nasteexeeyo bal hada إلهي وحلا عندك إلهي وهدو حني اللي يهقفكسي إلهي وهدو حني اللي يهقفكسي إلهي وحما تركدك إلهي وحما دشكدك إلهي وحما تركدك إلهي وحما دشكدك قفك أنا وحبة بحسنين هذا أنا الربي إنه ولالكيس وحقوق جاي إلهي ألوجا ربي الرحمن وهدي أنا أضل كل شهاد بذكرتها إلهي ومحي إلهي وكان ورمضة لما هوارو ورمضة وحبا الله شيئا ومضة ولا براروشيا waxaan ku oran lahayn horta wadadaaleysa halkana kulli xaga iyo Hargeysana kulli shaqo kaaga ma banaana wixii aad soo ururisay na dadka masaakiinta ee kugu haraaraysan ayay ku baxaysaa walaalow si marka horeba iyaga bisha Ramadaan la caawin jiray marka horeba iyaga bisha Ramadaan bishaas kulliya la caawin jiray bishiina yaan lagu baroor darsanina ma shaqa ya Hargeysa ka dhacday inta la dhaxday yaa wixii yar ee bisha Ramadaan ay heli jireen yaan la dhaafin waxa kale oo jira iyaguna dhalinyaro kale oo iyaguna TikTok isticmaala oo xaraabaadba ka dhigtayba ama wax lagu maadsado kaba dhigtayba mashaqadii Hargeysa ka dhacday waa kan mid kale oo isagu ninkan kale u jawaabay wixii ay ururinayeen ee ay yiraahdeen Hargeysaan oo ururinayna ayaga laftooda isku khilaafeen dabadeedna iyagii baa muuqaallo isku marmarinaya hawada oo mid walba midka kale ku cadjirayo iyagoo waliba ku maadsanaya mashaqadii ka dhacday Hargeysa hal haysna ka dhiganaya u hiili Hargeysa وهيلي هرجيسة العجا وأروين دونا يدتك مساكين تاه عن أفرك هيسنين وأن أفرين دونا صدر العجا محاول يدتك سليه العجل وصدر ما وصدر يعني شين أمس دنفر يو علوش بالعجير مساكين تلوجو أمين أجناح سكفرته العجل دمبيا هو أمين
donfar waxa ilaahay dadkii hore lacagta ii soo diri jiray hadda ii soo direen ilaahay horta annaga dagaalkiinu waxa dhibaato anagu ma laha idinku meelaha ama is-ereeryada ama daaya laakiin midda keliyan idinku haysanaa waxa weeyaan hawshii quruxda badnayd ee socotay ee suuqa Hargeysa ka socotay inaad idinku majara habaabisaan aad ka faa'iideysataan dadkiina macno kale u samaysaan horta midaas oo wax laga xumaado annaguna ka daaya baanu idin leenahay madagays ka dhig hadday gabar tahay ilaahay dhagoole ka dhig ilaahay waxa ka dhigtaa waxba siinin soo dira lacagaha soo dira ilaahay waxa ka dhigtaa dada waxba kirneen in lacag lagu soo diro waxa ka horeyso in lagu aamino sidaan ognahay lacag misaakiin lagugu aaminay haddii aad lexsatid intaan la gaarin aakhiro ay adduunyada lagaaga jari doonaa war hooy lacagaha misaakiinta koleyto isagu wuxuu jawaabayaa un wiil ay isku qabsadeen un dhaqaala ururuntaa suuqa Hargeysa ama suuqa waayana bay isku jawaabayaan muuqaalkiisaas wax macnaa samayn maayo bartaas inuu kaga gudbo waxaa jira boqolaal dhalinyaro ah oo si wanaagsan u fikira oo qalbi wanaagsan oo weliba dad badan oo social media ku jira oo saaw cabaadaya ka caqli iyo garaad iyo garasho wanaagsan wiilkani hadallada ku hadlaya dad badan oo xumaan u qaatay dad badan baa aflagaadiyay isaga laftiisa dad badan baa ku yiri waxaad ka xun tahay waxa loo qabanayo sidan dadka walaalaheen loo qabanayo maxay la caawinayo kaliya laakiin wuxuu sameeyay inuu idin baraarujiyo oo runta idin sheegay xaqiiqda meesha taala ummadda Soomaaliyeed u sheego dad badan oo caqli wanaagsan baa Muqdisho jooga Allah karaameeyo walaalayaal yaan u talay gaban oo gafuurka aan isku taagin mar dhow waxa gubta suuqa weyn ee Madiina yaa wax u soo aruuriyay aaba afar caruur dhal bulxuday ayaa roo fasaadka ay baaba ayaa u soo gurmaday waalidiin wiilashooda jaamiciyiin ka dhigay shaqeyn ay waayeen mootooyin u dhiiba lay soo dil waalidkiisa ayaa soo booqday kan la dilay dhiigiisa ayaa u dooday waxaa jira maamooyin dhiig la'aan iyo tabardari darteeda uurka calooshooda ku jira ilmaha dhalila yaa isbitaalada ku booqday qaraxyada kuwa noo baabay curiyaa mowlwooda in loo soo celiyaa gudi loo saaray kuwa bukaanada isbitaalada lacag in laga bixiyo guriyooda loo soo celiyaa guriyooda ku booqday gaawo maaloor tabarucaad loo sameeyay hadduu caan ahaan lahayn yaa u sameyn lahaa isbitaalka tabarucaad u sameeyay asagoo beledweyne jooga kuwa Muqdisho jooga waxaa niyooda inay waayeen naayooda xitaa ay ka tageen maxay u arki waayeen walaalayaal in dadka caabiyo aan ma diidani laakiin halayaa arkin la isku caabiyo diidanay magaalada Muqdisho waxa jooga dad haday afuran aan suxurin karin haday suxurtaan aan afur karin markaas waxay leeyihiin wadan kale ayaa waxa u dhisaynaa dabaqyo war wax aqli saliimka galay nool imaade runtii in casheeyay oo quraacday ee qadana u qaadaysaan dadkaasi idin garab jooga ee habeen iyo maalin ba soo qaxay ee Muqdisho dhexdeeda jooga ee duleedkeega jooga haddii aad TV-yada daawataan maalin walba waxaad arkaysaa qoyska odhanaya intaasoo dhan baan soo lugaynay masaafada intaa leeg baan soo soconnay waxaan cabno waxaan cunno midna ma haysano war dadkaasay ku baxaysaa waxaad ururinaysaan iyaga gaarsiiya 2-3 isha ka hor waxaa TV-ga Shabeelle la yidhaahdaa uu soo gudbiyey dhacdo ka dhacday Muqdisho duleedkeega hooyo 3 ciyaal haysatay oo intay soo qaxday meel fog ka soo lugaysay ay dhexda markii soo maraysayna waraabe ama dhurwaa caruurteedii mid ka mid ah uu ka qaatay iyadoo laba wadata la soo gaadhay Muqdisho duleedkeega kadib saxafigii wareysanayay uu weydiiyey maxaad dareemaysaa markii wiilkaaga waraaba qaatay iyaduna ugu jawaabtay hooyo hilibkeygii qayb maqan tahay wixii ay dareemi lahayd baan dareemaya war kuwaasi baa garab istaag idinka baahan war kuwaasi sadaqada ku baxaysa war nimankan waxaysta ee iyagu ganacsatada ah ciyaalkooda iskuulee dhigtaan iskuulee tagaan iyagu caafimaad qabaan waxay cunaan way haystaan guryahooda ma gubanin laakiinse waxa laga caawinayaa waa dhaqaale ay markii hore ku shaqaysan jireen weey marka haddaba intaad Hargeysa u soo hanqal taagaysaan ama dad waxaysta aad wax ugu daraysaan war dadka idin garab jooga ka warhaya oo dadkaas wax gaarsiiya dadkaasay ku baxaysaa